waxaan rabaa inaan wax yar faahfaahiyo haddii si kadis ah oo aan ku talagal ahayn oo qofka galmo u sameeyo ama yacni qof xaaskiisa aan ahayn oo ka warqabin caafimaadkeeda iyo waxeeda ama gabar yacni nin aysan ka warqabin caafimaadkiisa wixii si aan ku talagal ahayn haddee yacni gogol ula samayso oo galme ula samaysa ayaan ula jeedaa kadibna galmada kadibna qofka oo dareema ama oo shakiyo oo qofka ugu shakiyo inuu qabo xanuunka HIV-ga oo kale iyo wax lamid ah ugu shakiyo qofkii markuu qofku weydiiyana tusaale ahaan uusan waxba u sheegin ama uu ka dareemo qofka in xanuunka uu qabo iyo wax lamid ah ama qofka cirbid oo kale ay muddo soo isbitaalka shaqeynaya oo shakiyo yani cirbidaas yani ugu shakiyo in xanuunkaas qof qabay oo lagu duray iyo wax lamid ah ama qaybta ka shaqeynaysa waxaa jiifaba dhammaan dad xanuunka HIV-ga qabo marka cirbid ayaa ku mudday iyo wax lamid ah ama dheecaanka qof qabay ama qaybta ka shaqeynaysa ama ha noqoto magaalada dheecaanka qof xanuunka qabay ama ugu shakisay inuu qabo ama yani adiga ayaa u malayn karta mararka qaar ama ugu shakisay inuu qabo ayaa ku soo gaaray meesha uu ka soo gaarin markaa fiiriso meel adiga nabar ku ahayd ama dhaawac iyo wax lamid ah ama dadka qaar dhiig ayaaba lagu shubay ba kasoo qaad qofka dhiigga si fiican loo baarin yani meel nidaamsan oo qalab iyo waxyaalo ma ahan adiga shaki si guud yani haddaa soo koobo shaki waxaa u galay sidoo doonaha kugu galee in xanuunkaas HIV-ga uu kuu soo gudbay amaba ahan intaas dhane wuu kuu soo gudbay bo waxaa og tahay qofkan yani oo gogasha aad la samaysay oo jamaaca ama galmada aad la samaysay inuu qabo xanuunka ama cirbidan ku mudday qofkan yani lagu duray inuu qabo xanuunka waa hubtaaba si kale marka loo dhigo yani haddii xaaladaas aad la kulanto yani qaad tallaabooyinka soo socda ama xaaladaada waxay noqon kartaa mid shaki ah oo xanuunka aad ka shakisay oo waxyaabaha hadda aan soo sheegnay aad ka shakisay mid ka mid ah ama waxay noqon kartaa waxaa og tahay aa hubtabo yani qofka inuu xanuunka qabay yani wixii inay kuu soo gudbeen oo gogol ama jamaaca ama galmo aad la samaysay ama cirbid asiga lagu duro yani adna lagu si aan ku talagal ahayn kuu mudday adaa duraysi waana ku ogeyd xanuunka markaa warbixinta ka qaadayso kuu sheegay inuu xanuunkaas qabo cirbidii adoo yani daboolka gil isdhahay oo kale aad isku durtay yani gacanta kaa durtay iyo wax lamid ah marka midna qaybna waa shaki oo waa shakisan tahay oo yani waa naxsan tahay ama qofka xanuunka qabay wax lamid ah ka naxsan oo ka lulsan tahay qaybna waxa waaye yani waaba hubtaaba marka labadaba haddii ay jiraan tallaabooyinka soo socda qaad haddii tallaabooyinka soo socda aan kuu sheegi doono si sax ah u qaado insha allahu boqolkiiba 80 iyo wax u dhow jaaniskaada wuu fiican yahay xanuunka inaa ka badbaado ayayna u badan tahay waxaa la dhahaa qofka xilliga oo xaaladaas ku dhacay oo dhibaatadaas ku dhacday 3 maalin gudaheed oo daqiiqadaas laga bilaabo oo ku dhacay 3 maalin gudaheed oo 72 saac gudaheed ayaa la rabaa yani in tallaabooyinkan soo socda oo qaado haddii 3 maalin ay dhaafto 3 maalin kadib tallaabooyinka doo qaada macno ma sameynayaan laakiin waxaa la rabaa 3 maalin ugu horeysa oo laga bilaabayo saacadda dhibaatada ay ku dhacday la rabaa marka waa 72 saac 3 maalin marka saacadeeda la isku daro 72 saac gudaheeda la rabaa qofka in qodobada soo socda oo sameeyo waxaa jiro wax loo yaqaano BEP ama post exposure prophylaxis wax loo yaqaan ayaa jiro yani waa daawooyin ilaa 3 daawo ka kooban oo combined oo la isku daray daawooyinkaas marka qofka waxaa la siinayaa 28 beri oo soconaysaa oo lagu kala duwan yahay wadamada dadka qaar 1x2 ayaa la siiyaa 2 waqti dadka qaar hal waqti ayaa la siiyaa marka daawooyinkan haddii qofka oo qaato 3 maalin ugu horeysa oo bilaabo macnaha 3 maalin ugu horeysa xanuunka markuu yani uu iskaga shakiyo arrinkan oo shakigan oo galay ilaa 28 beri oo wada jaaniska oo yani xanuunka ugu badbaadi kara aad ay u sareysaa oo xanuunka ku dhaco xitaa haddii qofka xanuunka qabay yani uu soo gudbiyo hataa jaaniska ku badbaadi kara aad ay u sareysaa oo looga hortagi karo marka shuruudaha marka waa maxay waa inaad daawooyinka qaadato 20 yani 8 beri ayay soconayaan 4 isbuuc ah 3 maalin ugu horeysan inaad bilowdo waayo xanuunka haddii maalin afraad maalin shanaad ama isbuuc kadib aad bilowdo macno ma sameynayso marka waxaa la lahaa mar kasta oo aad usoo degdegto daawada dhankeeda oo tusaale daqiiqada ama saacado ka hor ayuu ku mudday daawada ayaa hore ka bilowday jaaniskaada wuxuu ka fiican yahay qofka 2 maalin kadib ama 1 maalin kadib bilaabay 3 maalin gudaheeda la bilaabi karaa hadana ugu horeyso qofka 1 maalin ama 2 maalin kadib bilaabo waa ka jaanis fiican tahay daqiiqada mar kasta oo 24 saac ugu horeyso hadaa bilowdo oo kale jaaniskaada waa 80 boqolkiiba
laakiin waxaa laga yaabaa 70-60 boqolkiiba inuu yimaado haddii maalin kadib ama 2 maalin kadib aa bilowdo. Marka inaa fahanteen ayaa rajaynayaa. haddii qofka uu ku shakiyo oo si sax ugu shakiyo ama uu og yahayba qof kale xanuunkii qabay inuu usoo gudbay oo qaabkii hadda kala duwanaa xanuunka ugu gudbinay aan soo sharaxnay ugu soo gudbay, yacni tallaabooyinka daan sheegnay ayuu qaadayaa. wixii su-aal dheeraad ah qabtana qaybta faalada ama commentary noogu reeb insha allah. insha allah intaas ugu soo koobay cashirkeena. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.